isleeyahay waa tugad ugu caqliga xumayd sabab qof wixii si xaday oo isagu iska leh amaanooyinkii yaalay qaatay tiishii ku daray oo aan ka fikirin war tan isqaabkaad waxa haday macquul ma tugada wala damac xun baa galay oo aan caadi ahayn oo aan qof macquulihi aan ku kici karin wuxuu sameeyay maharadii kale ayuu tiisa uga lacag tarimkan horta la cadadkan waxa weeye cash waa 7 milyan 650 kun oo Soomaalilaana birtu waa 5650 bir dollarku waa 14,193 dollar وقاسم يسيء إيد معوال عيسى إن آمنة يوسف شنو يستجرى meel for example هو lagu qiyaas karo oo isleeyahay hal loo qaato intuu ka soo dhacay ayuu tisbad la balse aanu ku xisaabtan tolo meeshan qof ma ka bixi kara bisaga bixi kara oo ah madaxa baarista saldhigga booliska 16 Juun garabkayga uu fadhiyo taliye saldhigga Maxamed Faarax Muuse gaashaale Maxamed Faarax Muuse waxaan ku soo bandhigaynaa tuugo culus oo ka dhacday degmada 16 Juun taariikhdu markay ahayd 22 bishii 12aad 2023 abaar 5:40 daqiiqo tuugadaas oo ka dhacday suuqa weyn ee xisbiga taasoo ah tuugo culus tuugadaas oo aan ka howlgalnay kuna guuleysanay si aan u soo qaban lahayn eedaysanihii tuugada geystay kaasoo ah nin isaga laftigiisu ganacsada ahaa oo suuqa ku haysta bakhaar damacna galay isla markaa meherad ka sii jeeda intuu saliiga meheradiisa darooliyay saliiga dhex raacay xagga sare uga soo dhacay meherada ka sii jeeda oo cidlo ahayd uu ogaa isla markaa uu jabsaday qasnadii lacagta ee meherada bakhaarka kalana baxay wixii lacag ku jirtay dollar iyo cash haddana uu halkii ka soo noqday meheradiisa ku soo dhacay isagoo jiingada sare gooyay si loogu arko in meherada xagga sare looga soo dhacay haddana meheradiisa dib ugu soo noqday qasnad kale oo ammaano u taalay meheradiisa laftigeedii uu jabiyey kalana baxay lacag ku jirtay oo dollar ahayd isla markaa isagoo marin habaabin si aan marin habaabin sameynaya wuxuu gooyay jiingada xagga sare dalooliyay si loogu arko in labada meheradoodba xagga sare looga soo dhacay saliigana la iskaga tallaabay sidaana lagu xaday waxaan kusoo guuleysay inaanu qabanno eedaysanihii oo ninkaa ganacsada ahaa kaasoo magaciisu yahay iid maaweel ciise ina aamine yuusuf 5 jira kaasoo markii aanu arrintaa wax ka weydiinay markii hore dafiray balse aakhirkii qiraal bixiyay tuugada culus baa ka dhacday suuqa gobolnimo goor waliba fiidadoowa goor saacada uu sheegay 5:40 meelahaas badoo xaqlihii bakhaarka kalaam dukaanka kala oo ka rawaxay goor hore ka rawaxay waa meel istaan ku dhow tuuga culus baa runtii ka dhacday aad oo ajaa'iba waxaan isleeyahay tuuga waxaan sameeyay waa kii ugu caqliga xumaa abid baan isleeyahay sababtu waxa weeye meherada ku xigta ayuu leeyahay ka sii jeeda damac xun baa galay oo aan caadi ahayn oo aan qof macquulihi aan ku kici karin wuxuu sameeyay maharadii kale ayuu tiisa uga dhacay meel for example hoo lagu qiyaas karo oo isleeyahay hal loo qaato intuu ka soo dhacay ayuu tisbad la balse aanu ku xisaabtan tolo meeshan qof ma ka bixi kara bisaga bixi kara rantii qofka uu bixi karay aqal marka saawirta ku bixi karay wuxuu dhacay maharadii ka sii jeeday wuxuu ka soo qaatay wixii yaalay lacag alaab kale kuma qaday wixii caag yaalay qasnadaha halka yaala ee culus ayuu jabiyay wixii yaalay kalmeelaha yaalay uu soo qaatay waxa kamid ahaa amaanooyinkan xidhan ee islaamu u dhiibanayaan guntimaha islaam baa maalinba wixii ay soo xariisato ku gunuda mid walba gunti kasta lacag baa ku jirta uu soo qaatay lacagahan hor yaala
qaar ka mid ah ayuu ka soo qaatay markuu ka soo muraadsaday uu soo dhameystay meheradii kale oo lacag imika halkan aan ku jirno ku maqan isagoo dollarna ay ku jirto sadibnayaashu sheegeen wuxuu soo dhacay haddana meheradiisa markuu gudihii meheradiisa yimid wuxuu ka qaatay lacagaha dollarka ah iyo birta ah oo cadadkoodana ardin sheegi doona haddii ay beedmo waa 3 xirmeed oo ayuu ka qaatay waa meheradiisa laftiisa wuxuu jabiyay qasnada yaalay oo amaanooyin ku jireen oo dad lahaa wuxuu qaatay kaash xataa isagu uu leeyahay oo raad gadasho ah hoos in oo dadka asqa ugu qaybiyo oo dadku u yiraahdaan loola ooyo dadku loo ooyo yiraahdo waa leena dhacay meheradii waxba laga tagin tii kalena wataasoo waa loo dhacay balse markii reportkii aanu helnay meeshii tagnay waxaanu garanay aqliyan waxaanu garanay inaanay meel kale inaan looga imanin ay tahay meherada sababtoo ah meheradan hore ee uu dhacay hoostu ka xidhay isagoon hoostana dabatana furin buu ka soo baxay halkiiba ka soo noqday tiisiina caadi buu daakhilaani ugu xidhay markii reportkii isaga aan soo toosinay la soo kiciyay waxaanu ku niri meheradaas way xidhan tahay sidaan u furaa anaa furayay buu halkiiba ka dusay wuu soo furay hoostu hadaraab ka saaray wuu soo noqday dabatana si caadi ah daakhilaanigeedii loogu furay tiisuna iyadoo fooyay way daakhilaanigeed ku xidhnayd katiinad baanu ku xidhnay waanu soo xidhnay saldhigaanu keenay baaris dheer baanu galay waxaanu helay waxyaabihii uu isticmaalo ay ka mid yihiin dubayaal iyo maqashiyo uu isticmaalay oo uu ku garaacay qasnadaha iyo waxa ku garaacay oo iyagana hayno baaristii markii aanu ku bilaabno dhowr jeer oo kala dambeeya aanu wareysanay iyadoo ehelkiisu nala joogaan ayuu qiraal cad qirtay inuu lacag tahay isagu qaatay meeshaana galay tiisana gurtay adduunkiina uu meel dhigay waanu ka hayno katiinad baanu ku xidhnay waxaanu tagnay gurigiisii foosto dhex taala oo caaga oo lacagta imika hor taala noocay doontaan ama dollar noqoto ama bir noqoto ama laahan noqoto oo ku guray waxaan hor yaala oo ku guray dabeetana uu ka dhigay meelaan waxba lagu fikirin si hadii gurigiisa loo yimaado aan cidu helin waanu soo gurnay wataan hor taala run ahaantii way ka maqan yihiin lacag way maqan yihiin isla sheegeen lacagta imkan hor taala cadadkeed waxa weeye kaashku waa 7,650,000 oo Soomaalilaana birtu waa 5,650 bir dollarku waa 14,193 dollar waa baarista madaxeedii bugaagtii lagu xisaabinayay meheradaha waa kuwan oo waa kuwan hor yaala halkan waa islaamaha wax dhigta amaanooyinkoodii maalinba waxay dhigato ay ku gunudaayo iyagana waa isku soo gunudaayo waa kuwaas ugu jiraan waxa la leeyahay oo dhibanayaashii meherada hore lahaa ay sheegeen inay ka badnayd imika tuugaasi wuxuu leeyahay dhowr dhibane oo lacagahan isaga qudhiisa ku sii amaan ahaa oo la dhigto qasad ku jirna uu sii jabiyay tii kalena uu sii jabiyay labaayeen muwaadin baa lacagahan dollarka ale waxa ku jira kashka ku jira lacag uu isagu sidoo sheegay leeyahay oo ku daray oo ka dhigay in la xaday baa ku jira kiiskiina wali wuu soconayaa meeri kale wax geeyay inuu sheegana waa macquul maxkamadana waanu geeyay war soo rumaan garanay qiraal maxkamadeedna waanu ka soo qornayo uu qirtay inuu labada meeloodba isagu jibiyay tiisa iyo ta kalaba inuu isagu xaday uu sheegay baaristina waxaan isleeyahay waa tugad ugu aqliga xumayd sabab qof wixii si xaday oo isagu iska leh amaanooyinkii yaalay qaatay tiishii ku daray oo aan ka fikirin war tan isqaabka waxa haday macquul ma tugad wala tabac mahalka ruuhantii waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa amaanayaa madaxa baaris ligo garabkayga fadhiya oo inta badan ka hawl galay gacantana ku soo dhigay baaristiisa mugale ee quruxda badan ee uu baaray awgeed aad iyo aad baan u amaanayaa waad heli doontaa xalay abaalkaaga waad heli doontaa
حق إلهي حق مسؤولين تبغى تكهل دونتا إن شاء الله هذا أنا وحن كلها هلك كسيوات تدوينا واحد شراء deegaan ka meherada laga jabsaday deegan oo si fiican oo qurux badan nolol shaqeeyay oo iyaga qudhood nagala hawlgalo macluumaad fara badan siiyay oo ay indhahooda aanu toos ka dhiganay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa leeyahay mahadsantiin haddii dadku caynka nolol wada shaqeynayo waxba lama waayay la'aantoodna waxba ma aanan heleen iyaga la'aantood kiiska kuma aanan guulaysanin iyaga guusha sababteeda lahaa oo nala hawlgalay oo wax badan noo binixiyay oo waxay arkeen noo sheegay oo nagala hawlgalay iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad runtii mahadsantihiin shakalaad mar khayran ilaahay baad ka jaasin doona haddii alla yiraahdo insha Allah oo idin ducaynayaa dadweynaha waxaan leeyahay dhibaatooyinka iyo tuugoodu idinkeedu ku dhacday markay wax dhacaan sida qoladaas oo kale inaad noo soo sheegtaan oo nagala hawlgashaan baan idinkana idin fari lahaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh